biyadiyo malaa'ig mooyaane cid makhluuqahoo lagu matalo anigu maqaano maashaa allah barakallah wama jeersadaye maal iyo dad waxaan leeyahaye midigta lay saaray martabada ardadu gaartay baa igala muqroone maashaa allah barakallah wama jeersadaye cilmigu waa musbaaxo jahligu waa madow yahaye ilmaan macallin loo helini waa maqal ugaareede mooryaan waxbana kama duwana matalaysyaahe haddaan lagu mintidin waalidkood kama macashaane minankiyo dugsigu waa inay madal wadaagaane oo macallinkiyo waalidku ay talaamidayaane ismoogaanshahooda ilmaha maqaana joogeeya iyo macallinkoo wuxuu mudnaan waalidku u muujin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تبرياشا مامولكا يكسو قيب قلاشا بدمانتين أولا وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وانا دين مهنق يا دمانتين سيقود caawa oo ay taariikhdu tahay 17 bisha 12aad sanada 1441 oo waafaqsan 7 bisha 8aad 2020 waxaanu halkan u fadhinaa in tababarkii macalinka dowladda 26aad inuu xafladii hore ku soo khatimayno aynu qabsano insha Allah tababarku wuxuu daarnaa laba mawduuca koobaad wuxuu al-muallim an-naajix waxay noo galay mudarrib Cabdiraxmaan Iid Colaad xiisada labaadna waxay ahayd مسؤوليات ومهام مدير المدرسة وحنا ينقلي المدرب جامع عبد فراش إن شاء الله تعالى وحلو فرفرتو وحلو خير بدن بين كفرنا حفلتنا وحنا آخرية قرآن أخونا عبد النور محمود عبد الله فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كان نقافعه walaalka inuu akhrino Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka wanaagada ha ugu daro insha Allah ta'ala aniga oo ka hadlaya afka mudiirka yani markaska Mucaad ustaada Sucaad Cabdiraxmaan Cabdilaahi waxaan insha Allah ta'ala warbixin ka bixin doonaa bal markaska iyo xilliga la aasaasay waxyaabaha uu qabto markaska Mucaad lidacwati wa tadriibaat waxa la aasaasay sanadii 2008 markasku hawlaha uu bulshada u qabtaa laba ay u kala baxaan hawlaha qaar waa hawlo dacwo iyo hawlo tadriibaat برنامج دعوة وحاس ما تستح برنامج واوين كوكب وحوية تحفيظ القرآن الكريم وأهل الكبار والصغار وبرنامج كحفظ القرآن الكريم كاس أو مركز كوفوليو يري واوين به برنامج كلابات هو سمع وحوية التوعية أو محاضرات كي برنامج كاستحاض هو سمع قيبتها دعوة وحوية الغاثة يعني كالمين تعقومها يا فقراء جارها مواسم كيحل يد خيرك qaybta labaad ee markasku fuliya waxa weeye tadriibaat waa tababarada markasku u bixiya laba u qaybsamaan waa tadriibaat mihaniya oo ku kooban dumarka
oo ay hoos yimaadaan cunto karintii iyo maaragtay camaliyaatu tajmiilkii. waxyaabaha kale ee uu qabto waxaa ka mid a tababarka la yidhaahdo kaab. tababarka la yidhaahdo kaab waa tababar aad u ballaaran oo gaadhaya ilaa iyo 10 tababar buu gaadhaa. waxaa ka mid a tababarka la yidhaahdo waalid kaab oo u kala baxaya 2 qaybood, aabba kaab iyo hooyo kaab. waxa uu qabtaa barnaamijka la yidhaahdo tababarka la yidhaahdo dhalin kaab oo uu qabto da'yarta gaar ahaan dumarka. waxaa kaloo uu qabtaa barnaamijka la yidhaahdo ubad kaab oo loo qabto yaryarkii carruurta, kaas oo ah barnaamijka ku dhisaya maskaxdooda iyo wacyigooda. waxaa kaloo uu qabtaa barnaamijka la yidhaahdo macalin kaab. barnaamijka macalin kaab la yidhaahdo ujeedooyinkan u qabanaa waxaa weeye in aynu xirfadda macallimiinteena kor u qaadno si xilka culus ee ah barbaarinta akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaan ee ubadkeena si ay maaragtay u dee gudan karaan. waxyaabaha kale uu soo kordhinayo maaragtay markasku waxaa ka mid ah tababar la yidhahdo maamul kaab. insha allahu tacala iminka maamulayaasha iyo macallimiinta baynu isku dhex jirnaa. marka waxaan doonaynaa inaan kala saarno oo tababarna u qabano maamulayaasha, tababar kale aynu u qabano insha allahu tacaala macallimiinta. markasku waa markas dacawiya weliba nisaa'i ah oo haween maamulaan. ilaahay subxaana watacaala miisaanka wanaagooda ha ugu daro khayrka ay ummadda u hayaan. insha allahu tacaala waxaanu gudagelaynaa kelimaadkii maaragtay tababartayaasha. waxaan ugu horreysiinayaa axmed maxamed shide oo ku hadlaya tababartayaasha yacni kuwa ka socday malcaamadaha. falitafadal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي سبحانه وتعالى أينو ما هدنقينا إنو سورة لي برنامج خيري مشروعا وناكسنا نقبصني إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا أولا وآخرا. وحين إلهي سبحانه وتعالى كرتينينا إنه كتشرنا ساعات آدو خير بدن يا وقتي رنتي في عن أو صمدوا فرنت الروب كينو دايو الله سبحانه وتعالى نعمل كنا أقبله الله إنه أقبله. أنت كتب وحنقول ذكر يا كلمة دي ركوب كوبان وإن شاء الله إنه كنا دونه قضية يمشي نشوفنه أو مناسبة هنا إنه أرجني تكوبات إلهي سبحانه وتعالى أينو وما هدنا قينا مركل بعض وحنا ما هدنا قينا مدربين تا معلمين تا الساتذة إن تببريسي وقت جودي وإنه أجن هرمتي هوش أي هيان يوكاليتا يكون فوقي هنا ومدينه هيان وقت جينا نوصه هراي وقت جودي نوصه هراي aad baan ugu mahadnaqaynaa. marka labaad waxaanu mahadnaqaynaa oo kale dadkii ka qayb qaatay soo qaban qaabiyay soo diyaariyay barnaamijkan aad ka wanaagsan markiis macaad dhammaan agaasimayaashii barnaamijka soo qaban qaabiyay anagoo isku wada qaadayna aad baan ugu mahadnaqaynaa. waad ugu mahadsantihiin. marka saddexaad waxaanu mahad celinaynaa anaga isku mahad celinaynaa oo ah almutadarribiin dadkii tababaranayay. runtii haddaanu nahay maamulo iyo haddaanu nahay macallimiin kuwa dugsiyada sare wax ka dhiga, kuwa dugsiyada dhex wax ka dhiga, iyo kuwa madaarista qur-aanka ka dhiga, intaba hablayeennamaba dhammaan aad baanu idinka mahad celinaynaa barnaamijkan wax ku oolka ah ee tayada badan le aad noo qabateen. jasaakumullahu khayran baan idinku leenahay. aad baanu idinka mahadnaqaynaa. runtii waanu ka faa'iidnay, aad baanu uga faa'iidnay. waxaanu kaloo maxay aanu u mahadnaqaynaa iyadana gaar ahaan dumarkan markiskan muxuu ahaayey hawsha ka wada, iyagana si gaaraan ugu mahadnaqaynaa. intaa kadib waxaan doonayaa inaan kelmado yar oo kooban ana waqtiga soo ururinaya aan galo. kelmadda koowaad waxaan u jeedinayaa dadka gacanta ku haya markiskan tababarka iyo acmaasha kale ee wanaagsan ee faraha badan laynoo tirinayay qabta. 2 kelmadood baan iyaga odhanayaa, ku badin maayo. kelmadda koowaad waxay noqonaysaa inay barnaamijkan ay sii wadaan oo ay halka ka sii wadaan oo ay hore u sii socdaan oo aynay isdhiganin. kaasi waa mid. talada labaad aan siinaya waxay tahay xagga tababarka oo ah mid aad runtii loogu baahan yahay oo ummaddeenu ay ka qaatan tahay
baahidiisuna aad iyo aad u badan tahay inay laabaan oo ay laba jibaaraan oo ay aad ugu dadaalaan dadka ay keenayaan ay noqdaan dad ehel u ah mawduucyada la gelayna ay noqdaan mawduucyo muhiima oo waaqici oo taabanaya oo daweynaya boogta kolba meesha loo baahan yahay intaa kadib waxaan haddana kelmadda labaad siinayaa amaan u jeedinayaa dadkii ka soo qayb galay ama dadkii ina tababaraya oo macallimiinta ka mid ah runtii anigu waxaan si gaar aan ugu faraxsanahay oo farxad gelinaysa inaan joogo bayna waadiyeyni min dahab laba tog oo dahaba ayaan dhex joogaa dhankan waxaa iga xigaa macallimiintaydii sharafta badnayd karaamada badnayd ixtiraam badan oo hayno iyo qadarin weyn oo runtii nagu soo tabcay xaggana waxaa iga xigaa ragaanu saaxiiba nahay iyo dad aanu soo saarnay oo ardaydeeda ka mid oo maanta macallimiin oo halkan fadhida iyagana aad iyo aad bay farxad gelinaysaa marka labadaa tog baan u dhexeeyaa si gaaraba markaa ay farxad gaara igu tahay waxaan markaa macallimiintaan kula dardaarmi lahaa ama aan ku codsan lahayn codsi bay noqonaysaa macallimiinta waxba sheegi mayne waxaan ku codsanaa macallimiinta inay tababarka noocan oo kale ah ay noo joogteeyaan oo ay soo celceliyaan oo ay ihtimaam badan siiyaan iyagoo runtii aynu ognahay oo dadaalaya oo meelo badan u furay oo jaamacaadka qaarkood ay macallimiin ay ku tababaraan haddana inay sii laabaan baanu iyagana aan ku codsan lahayn waxaa kale oo aanu iyadana aan u jeedinayaa kelmadda ugu dambaysa annaga oo ah dadka la tababarayo maamulayaasha iyo macallimiinta runtii aan iska codsanaynaa inagu amaan isfaraynaa marka koowaad inaynu aqoontiina kor u qaadno oo aynu isdhisno waayo waad ogtihiin gaar ahaan waxaan anigu yaro badinayaa dhanka macallimiinta qur-aanka labadaba waan ku jiraa macallimiinta dugsiyada sare waxaa ka dhigtay macallimiinta qur-aanka laakiin xagga qur-aankaan u iilanaya maadaama isagu wanaagsan yahay xaggaasaan la safanaya in badan aan kusoo jiray oon xagga kale kaga badanahay macallimiinta qur-aanka si gaara waxaan horta u sidaa bushaaradii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama bushaara ka dambaysaa ma jiro waa bushaarat maa bacdaha bushaara iyo wanaag aani wanaag ka dambeyn weye khayryadaas khayr ka dambeeya ma jiro marka waynaynu ogaanaa horta halka aynu saaranahay marka koowaad waayo shalay toole waxaa lagu celcelinaya ama inagu dareensanahay laftarkeenu waxaad moodaa inaan mawduuca aynaan dareensanayn inaynu nahay dadka ugu khayrka badan leh dadka ugu khayrka badan leh haddaynu nahay taa aaminsannahay kamaynaan faaneen oo marka meelaha lays wareysanayo hoos maynaan dhignayn dugsiyada qur-aanka oo maynaan idhahdeen meel halkanaan sidaan idhahda macnaha waynu madaxayn soo taagin laakiin macnaha qur-aan baa dhiga maxaa ka wanaagsan wax alle wax ka fiican oo ka qiimo badan marka runta isku sheegna dee ma jiro marka ta kale waanaynu madaxeena kor u qaadno waa la ixtisaas baa laynaga rabaa inaynaan isliidin waxa Soomaalidu waa tii jirtay ilaa waliba halka ishinkaysa kitaab lagu qala marka waxa weeyaan almar'u haythu yad'u nafsahu qofku waa halku isdhigow hataa hoos isku dhigtana adiga weeyaan dad kor isku qaadan waa adiga marka inaan istuuleenin inagu Alle ma duulin subhanahu wa ta'ala meel sarwina saaray marka maqaamkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqno oo aynu xijisano ayna ka faanin kana tanaasulin baa loo baahan yahay deenu nahay macallimiinta quraanka waxa kale oo loo baahan yahay macallimiinta quraanka deena ummadda wax la qaybsadaan waxa dhacay wax la yiraahdo infijaarul ilmi aqoonti baa qaraxday ma ka burqatay meel walba مواكبة مع الأحداث مع الواقع الحديث وحلا دونا إنه الله كان قادنا إن وقت كان عصب هذا نقطة قابك وحلا رجعيو تدريسك هذا نقطة هبك وحلا قد بني هبك الله رجع ما أرتيدا واردين الأول با إنه نسنو أو أينا نسجنين أيلا نجربه هذه كلا ولا نجد تلتقيه إن وحاول السجارة نسكولا ترتار منا inaynu sameeyno wax loo yaqaan cilmi dhaati inaynu wax isbarno qofku inuu wax isbaro isagu inaanu cidna ku tirsanaan isagu wax isbaro shakhsiyadiisa ni doctor Tahir Rada wa taqaan doctor Tahir al jaamac waa ni doctora oo wada garanaysan ba fariya dhamaantii dadka ku jira fi majal al ma'rifa ma fi majal al ilm dadka ku jira iska wada garanayaan ayaa bari aanu wax ka dhiga jirnay wax noo dhigi jiray jaamacadu noo dhigi jiray wax filaya in 2014kii buug xiisadii ugu dambeysay noo galay wuxuu noo dhigi jiray qaybaha tarbiyada dabeetana waxaan ku codsanay inuu macallin dardaaran si dardaarkii ma doonayay soo gudbiyo waxaan ku macallin dardaaran doctor waxaan doonayaa dardaaran aan siiso waa ku celceliyaa kelmadda ayada wuxuu yiri dardaaranka hadiisanaya waxa weeye kow qalab baan la soo baxay markaa wuxuu yiri al ilmu dhaati aqoonta gaarka qofka isbarayaan ayaan rabnaa haya laba markii labaad baan hadana wuxuu yiraahdaa al ilmu dhaati markii labaad markii saddexaadna al ilmu dhaati saddex jeer wuxuu ku celiyay al ilmu dhaati
bes buuri taasay gadhantay dardaaranki halkaa maxaan ka qaadanay markaa in ay tahay in qofku wax isbaro oo isagu dadaalaa wax weyn isaguna dabcan waad wada garanaysaane wuxuu ku leeyahay aniga wax isbaro inta badan marka barakallahu fiikum jazaakum allahu khayr waan ku dheereeyay kulli waa laga dambeeyaa mana dee filahaynin aniga lagu horreysiinayay macallimiintu halkan fadhiya oo dad baa halkan fadhiya aqoon badan oo muxuu ahaaye xagga khibradda iyo xagga aqoonta xagga waayo-aragnimada iyo xagga da-da intaba iga mudan in halkii soo istaagaan aad baan uga cudur daaranayaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد أحمد شيدة إلهي سبحانه وتعالى تلوين كاوان أكسن أيون السيي حتى نقطة معمول هاني حتى نقطة معلمين هامبا إلهي سبحانه وتعالى هنوقع فعوي سجن إلهي سبحانه وتعالى ميزان كمان قد هو صاروا إن شاء الله تعالى وحن كوحك سينا يا أحمد حسن عوالة أحمد شام وإن شاء الله تعالى سنكو هذه دونا أفكا معمولياش يا معلمين تدوكسيدة يعني أكاديميكا فضلك سدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأم هضلة من داننا محمد يا أمان أياله شرفنا انت الرعضي يا عيسى باله إن انت كذب وحنو ما هنقيا ومرك كوباد إلهي سبحانه وتعالى مرك لبعضنا مؤسسة تعليمية أما أكاديمية دنا يندح شغنو هول كيدي أنا وحكي لجنني معاد أن قاروهم بليين أيوه سيدو كده واتشي إن أستاذ محمد سعاد عبد الرحمن عبد الله أو أساسها إن أي نقضان إن ضد كلا توابرا أو ضد كان له جامية أو ضد كان مثقفين صباحان مرة استحاضة حنو هيلنا يا صاحب ضي مرة معلمين تيدي وهيلياشا برايها أما جامعة فلاش هذا سجها رودو الاستياجو وهيليها براها مركو دلنا كسان نقضي السودان كسان نقضي أيه واحد صاب حي يلا معلمين تبين الحيران والخميس سكيت شلانو اسكسر فيفر ليهو إن بوق يوم مقرر كتارون لديجو أيو جامعة فلاش تلكيمي بعدين نروح نسمي أكاديميات كلا ديوانا توابراه أكاديميات داس إما كايجو أنت جامعة بدر كلية التربية أو إلا هير أي ماستر جارسين يسوي يجنا واساسي أدمن يدكم بهالنقيا خريجة دمربا ما كلا رعدان ما كلا رعنا ده نسوكين ترى إن واحد دوني أنا لبد صدق قدام دول استعاني قال أفتر خيجو أن صاحب كي أياد ميجي إن أنا برا كمذا براياش الدكتور سارة محمد أحمد شدة وحكوا الرئيسين دونا قدام ككوباد مهندنا هنا محيط ومعلنمو دالك قيمة هيك كترتها واسكمير هوسي ومصاريف بالله إلى هذا يو بقولك تكلا بقولك تكا دولار يو إلا لما بقولهم بقول حيسا دني سقم إيش اسكلهم ويه لما كاسكلهم بملاك يرفع يستي إن واحد دولنا بل معلق السدوق وقنع كرا وحنو هيو مركز برتي المسؤولتي صاحبك ما كان يرسل حرينا ميل هوسس دقينه أنا وان ير شقتها ميل بن يرجعنا إن عندنا شرف لا لو يدينا يا هو يديد هرتنا تياب لا مش قيسها ميل حلقنا كشقيسها إن كيه بالمشقة يا ها أورهرك مصاريف تمسية والله إنه محمي أيوه ميل حلقنا كشقية ماشاني وأفضل الكلام حلقة التالي أو كلام الله ومدارسكي ومعاهدي شريعة ومساجددي مدام بري هذا لا يابي ودادني دليرada makacaysa kamid ahayd ayaa waxaanu isku soo galay hoolka jaamacadda Badar maru tababarnoo qabtay maamulaheena amba ustaadkeena camiidka dadna wuxuu war xaga ka shaqeysay ku bariya ismana arage wana masaaj bartan iska joojooga buurniyo dadna aad baan la yahay masaaj halkan iska joojooga qolooyinka iyagan iskuuladu haddana ma kale waarda waanu shaqo tagnay تها وانو شقت تغنيو ير كاود بانو غلينا inaanu xaragada ka dhisno inaanu maskaxda dhisno inaanu jimicsi soo sameeyno inaanu soo saarno arday muthaliya oo soo jeeda wadarka macallinka quraanka tusaalahaan waa macallin kullu macallimiinta quraanka waa kamid ahaa oo ninkan baan wada shaqeyn jirnay quraanka inoo akhriyay waxaad macallinka kabiisaanay baalashlayn amba cimaamad saa yar duubanay siyar bila xarago bila nidaama
amba khamiis yaroo iska hudheeriya koodh weyn iyo iska xidhan iyo macalin iskuullada dhiga oo dhiida ka xidhan oo kabaheer caalamiya xidhan oo allahu lmustacaan war waa yar kulayle hayla yaabina dayd kama nixine markaas waxaan leeyahay horta waxaanaynu qabanayno saddexun aynu ku qabanno waa inaynu aaminsannahay inaynu awood u leenahay waxan laba waa inaynu aaminsannahay inaynu waxaanu garanayno saddex waa inaynu aaminsannahay waxaanu inuu cibaado inoo yihi ama macallin iskuul ahaw ama macallin qur-aan ahaw ama masaajid hayso ama macaahid amba college hayso shaqadan aad qabanaysaa qul kullun yacmalu calaa shaakilatih farabukum aclamu biman huwa ahdaa sabiila war xalkaad horta mar hor qof walba ilaahay subxaana wa tacaala xalku hankiisu taagan yahay ayuunbuu ku meel maraa ilaahay subxaana wa tacaala xadiisulqudsi baa inoo caddaynaya maanta xalkan rabo xalkan higsanayo waxaan doonayo dadaalkayga ayaa wuxuu ku xidhan yahay rabitaankayga arsaaqadayda sharaftayda iyo mudnaantayda in aniga la siiyo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu leeyahy anaa cinda danna cabdi b addoonku aniga wuxuu iga malaysto ayuunbuu ilaahayna ka helaa ilaahay haddaad ka malaysataan ba haddaad ilaahay aaminsan tahay inaad yaro shaqo tagtaad 100 dhaafin ka waran dee maamuluhu iska ka aariyo deedna mid cabdillaahi iska xayraan oo qur-aanka dhameeyo fartiisu aan aad u wacnayn buu keeni oo gebigiisa $100 qaata aduu xaggaad 100 ka qaadanaysay marka waxaan aad idiin leeyay walaa khayra fi man laa yuda min hada alamr waa shayga ugu khayrka badan in la isku dhigo macalinimadu safar xawaali baa odhanaya markaa waxaan leeyahay ashyadan aynu qabanayno aan ku celcelinayaa mar walbana leeyahay waa inaad marka hore sheegtaa ood qortaa ood qabataa ood ku dadaashaa kadibna waad noqonaysaa maxaanku uhi waa inaad qortaa waa inaad sheegtaa ood qeexdaa waxaan ugu xuyey waxaan macaagad baa haa maxaa ujeedadu ay noo tahay inaynu biyo ku shubno amba sharaab maxaa ka dambeeya inaynu cabno maxaa kasii dambeeya in la tuuro maya halkaasay ku kala beedhna haddaa inaad ka fikirto hadha wax ma kuu taraysaa mise kuuma tarayso haddii hadha wax kuu taraysa hayso oo maydho haddaan wax kuu tarayna tuur markaa waxaan leeyahay macallinku waa inuu isagu marka hore qeexa mihnadan u hayo marka dambe waa inuu isagu qoro waa inuu qabto waa inuu ku dadaalo waa inuu marka dambena kadibna u noqonaya markaa waxaan kusoo ururinayaa oonan mar walba aanad jeclaysteen inaan ka horeeyo macalimiinteyda sharafta leh cabdiraxmaan colaadi jaamac cabdifalaash saaxiibadeyda kale iga aqoonta badan iga aragtida dheer waxaan idinku soo gebagabeynayaa 2 qodobun dumarka waxaan leeyahay waxaad noqotaan al-umma almithaaliya hooyo tusaale ah hooyooyin baad noqonaysa mise hooye xoogaa inta kale waa soo alamteenaysaa de sidaan oo kale iyo ambada abanimadu ma soo alamteenaya makee waa inaad noqotaa al-umma almutacalima hiya ummatun mutacalima waa inaad idinku dadaashaan doorkiina ah inaad dadka waxbartaan dadka soo saartaan dadka horumarsaan dadka aad higsi gaadhsiisaan waar idinkana waxaa idin leeyahay waxaan u baahanay macallimiinay binaa-u linsaani asaalix linafsihi naafic waliwadanihi waxaan u baahanay nin amba inaynu dhisno qof saliimulcaqli ah oo mustaqif ah oo mufakir ah oo soo jeeda sidaynu ku rabnaa markaas inuu laba inoo anfaco linafsihi waliwadanihi xaggeen u dadaalaynaa dee dalka iyo nafteena uun anu waxaan imaka u tartamaya wasiirka waxbarashada jaamac cabdifalaash madaxweyneha du imaka isku soo sharaxo waa lagu wada ridayaa dee soo maaha marka waa inaynu xalkan keenu gaadhsiino wahaakada adraka saarushaadi sabaax fasakatat can ilkalaami almubaax asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد شام aad buu mahadsan yahay waqtigoonu gar awgeed waxaan ku xogsiinaynaa kelmadii haweenka ama dumarka insha allahu tacala waxaan u yeedhayaa asma yuusuf oo ka hadli doonta afka mutadaribiinta gaar ahaan dumarka asma yuusuf aa soo dhawaato bismillaah marka hore ilaahay baynu mahad celinaa subxaana wa tacaala inoo suurtageliyey barnaamijka kan qiimaha badan leh isaguna kan keenay madashatan qaayaha badan leh bacda mahadda ilaahay kasako waxaan dhammaantiin si kale ilaaba idinku salaamayaa dadka halkan isugu yimada shatan bilan boqoran salaanta baridada islaamku assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda albarida waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeedin lahaa markiisa soo abaabulay intaasoo dhan oo macalimiina ku kala firtaan magaalada hargeysa rag iyo dumarba lahayd
inuu isugu keeno kulan iyo maxay hayday tababar ay qaataan markiisaas baynu maxay hayday markiiska umu macaad oo markiisa haweeney ay u sareyso isla markaana arrimaha haween ka shaqeeya inuu ku daray arrimaha raggana aynu isagana si gaara ugu mahad celin lahayn sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ugu mahad celiyo macallimiintii tababarka ay noo qabatay macallin jaamici macallin cabdiraxmaanba aynu runtii odhan karno waa dad maxay hayday ku dayasho mudan waxyaabo badan oo aynu ka faa'iidnay inta badan oo kalena ay ku tahay dadka noocaasna waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo iyo in maxay hayday dadka kale inay ka sareeyaan loo muujiyo la tuso iyagana waxaa leeyahay jazakallahu khayr ilaahay ajir iyo xasanaad idinka qoro sidoo kale waxaan u mahad celinaa walaalaha kasoo qaybgalayaasha dhammaantood oon odhan lahaa maxay hayday waxaad la timaadeen maxay hayday juhd iyo dadaal waayo macallinku ma inuu wax bartaa macallinku meel wax lagu barta imaadaa way adagtahay inta badanka oo dadka macallimiinta inta badanka malaa waxaan u malaynaa ka qatiraan ay dhahdaan haddaad wax baro macallinkii wax baranaya inay ka qatiraan ayaa dhacdo waan u malaynayaa markaa dadka macallimiinta ah ee dhammaantood soo wada xilqaamay dhammaantood ka wada qayb qaatay tababarka iyagana si gaar ah ugu mahad celinayaa waxaan idin soo jeedin lahaa walaa dhammaantiin nafteeda iyo nafihiinaba waxayaan halkaa ka kororsanay aynu ka qaadanay aynu macallimiinta ka faa'iidnay aynu ahaana qaar iyaguna ummadda inta kala gaadhsiiya oo ubadkii iyo dadkii ay wax barayeen ay tusaalaha u haayeen gaadhsiiya oo cilmigii bartaaynu ka qaadanay aynaan kaliya ta ka dhigin hadal aynu bedelno ficil goobihii aynu ka shaqo galaynayna au ka shaqeeyo ereygaas hadallada ay macallimiintaas ku dhahdeen sharafta badan leh dhammaantiin waqtigoo gaaban baa Soomaalida xitaa goor gaaban ereygeeda gaaban si kaliya laaba baan idinku mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ustaad asma aad bay u mahadsantahay insha allahu tacaala waqtigu aad noogeer waxaynu gelinaa kalimaadkii mudarribiintiinu gelinaa insha allahu tacaala waxaan kusoo dhaweynayaa mudarrib jaamic cabdi falaash بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي هذا الكوالة دمائي dadkii ugu horeeyay macallimiinta ayaa runtii si fiican maartay u soo koobay wax badan inay yiri inaguna wixii aan ishoran lahayn horeyna isu niri shalay iyo maantaba runtii waxaan bogaadinayaa un markiska sucaad si gaar ah oo runtii aqoontii ay baratay la oran karo midho dhal ayay noqotay ama dadka ay wax ku celisay inagana saas leeg waxa la inooga baahan yahay qof waliba halkuu joogo runtii inuu wax soo saar uu yeesho oo uu wax dadka ku celiyo ayaa muhiim ah marka si gaar ah u bogaadinaynaa barnaamijyada kala duwan ee la yaab kale ee haddii noqoto ubadka u gaarka kuwa waalidka u gaarka kuwa macallimiinta u gaarka ee la kala qaadqaaday ama la kala qaybqaybiyay runtii waan bogaadinaynaa halkaana inaan kasii wado insha Allah anaguna waan la shaqeynaynaa wixii awoodeeda ah sidoo kale macallimiinta iyaguna wax kororsanaya go'aamiye aqoontooda inay iyaguna kor u qaadaan xirfadooda ay koriyaan oo ay kordhiyaan oo inta ay maanta waxa way qof waliba uu hayo inuu ka kororsado macallimiinta iyaguna go'aamiye iyaguna waa bogaadin ba mudan yihiin shalay un bay had maalin dhaweed un bay had runtii marka macallimiin badan ay oran jireen aniga inaan dadka hor istaago mooyaane in aniga lay hor istaago soo maaris waan ma ogeli laakiin imika waxaad moodaa macallimiintu inay maartay waxa ay qaateen fikirka in iyaguna wax bartaan runtii waa dareen wanaagsan weeye wana wax tacliinta kor u qaadi kara guud ahaan macallimiintana kolley iyaguna bogaadin bay mudan yihiin inay aqoonta sii wadaana aad iyo aad baa loogu celceliyay ana waan sii xoojin lahaa runtii soo kale waxaan aad isna ugu mahad celinayaa ustaad cabdiraxmaan oo Suudaan aan wada joognay jaamacadda Afrika ka baxay kulliyadda qaanuunka laakiin baabka nimanka macallimada isaguna waxa weeye runtii ku jira tababaro badan runtii hore u bixiyay aad iyo aad baa u mahadsantihiin kul waqtiguna uu gaaban yahay waxa la goor gaaban hadalkeena gaaban nin gaabanna hadalkiina gaaban day anagoo gaabanahay marka saas ku dhantay insha Allah aad u mahadsan mudarribku Ilaahay subhanahu wa ta'ala tababarka wana tababariyo mawduuca aad ka wanaagsan ee uu noo soo jeediyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka wanaagida ugu daro insha Allah ta'ala waxaan ku xigsiinayaa mudarrib Cabdiraxmaan isna balsoo kelmadiisa kooban noo yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah runtii farxad weyn bay noo wada tahay dhamaanteen waxaan runtii u mahadnaqayaa maamulka markaska oo runtii dadaal badan runtii ugu jira sidii maaragtay dadkooda maaragtay horumarkiisa ay uga shaqayn lahaayeen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa runtii macallimiinta
iyaguna runtii waktigooda iyo howlahoodaba u soo horay runtii sidii ay mihnadooda u horumarin lahaayeen. waxaa kaloo mahad celinaya runtii ustaad saaxiibkay jaamac runtii isaguna dadaal badan runtii ugu jira sidii uu maaragtay hawshan midhaheeda runtii uga dhalin lahaa, iyo cid kastoo runtii kasoo qayb ka qaadatay barnaamijkan. kule hadal badan waynu nidhi oo macallimiintii naga horeysay ayaa runtii dhameeyey. dardaarankaygu waxa weeyaan hawshan inaynu sii wadno, inaynan joojin, sidoo kale in aynu goobihii aynu ku noqonaynay ama iskuulla ahaadaan ama macaahid ama maaragtay madrasado inaynu practical u bedelno. ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa fulinta weeye. wax badan waynu baran karnaa, shahaadooyin badan waynu qaadan karnaa, laakiin waxa inaynu nolosheena ku dabaqno, taasaa runtii midhaheeda aynu arkaynaa. aad baan runtii u bogaadinayaa macallin kasta oo maanta runtii geesinimo muujiyey oo runtii maanta waxa weeyaan doonaya inuu naftiisa horumariyo, ummaddiisana horumariyo. runtii waa geesinimo weeye, halka kasii wada maaha kani kii u dambeeye maaha. marar badan insha allah waynu iskugu iman doonaa. guud baa idin rajeynayaa. aad baa umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى الشاهدين كي مشاركة مركو روح نقول تلقى اللي صدن هوانا إيه صدن رجع وحمدين عطسيدي أدو صوبتين أو تردي إنتين ورمنا كير بضاتي الشاهدين كانوا هنا واللي حدن إن شاء الله تعالى عدة كجود الشهادة والله سمين ياباني صدن دونان إن شاء الله تعالى معلمين تين إنه إحنا قدوسين دون الشهادوين إنه قدوسين إن شاء الله تعالى الشهادين كي بين إسكو قدوسين دونا وحنقول رئيسين يا مدرس عبد الله عبد النور. عبد الله عبد النور مدرس عبد الله عبد النور. معلمين بدماني وانا سماما هي آدم أحمد محمد. مدرس آدم أحمد محمد. هي مدرس نعمان إسماعيل حسن. نعمان إسماعيل حسن. وحنقول سنة مدرس عبد الحكيم محمد محمد. عبد الحكيم محمد محمد. دانك الدمر كان وجود بينا هوينك أستاذة صخرة إدريس أحمد. صخرة إدريس أحمد. waxaan ku xusinaynaa ustaada hibo ibraahim ismaaciil. hibo ibraahim ismaaciil. hibo ibraahim ismaaciil. waxaan ku xusinaynaa ustaada farax cusmaan cabdi. farax cusmaan cabdi. farax cusmaan cabdi. waxaan ku xogsiinaa ustaada ikraam cabdiraxmaan cuthmaan. ikraam cabdiraxmaan cuthmaan. insha allahu tacaala inta ay ka go'day weliba halkan shahaadooyin baa inoo yaalla fara badan, hadhow baynu qaybsan doonaa waqtigoo inugeer awgeed. intii ay ka maqan tahayna insha allahu tacala waxaanu sameynaynaa, dib baa loogu sameyn doonaa, dib bay ka qaadan doonaan xarunta markaska ay insha allahu tacaala usoo doonan doonaan mudaribiinta iyo mutadaribiinta. dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa. ilaahay subxana wa tacaala dhammaantiin hayna barakeeyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.